waxa weeyaan arrimahan sidan u socda ee mar walba la isqabsanayo ee mar walba wixii la wada dhigtay meel lagu wada gafayo ee mar walba wixii meel la dhigtay lagu gafayo ee dastuurkii lala dhacayo lootada waxa weeyaan annagu haddaan nahay dhalinyarada maalkiisaanay gobolka Awdal inaanu isfasaxno laanta inaanu isfasaxnaan loogu talagalay oo danteeda qabsan haddaan sidii wax loo dhigtay ee loo heshiiyey iyo arrimaha loo waday aan loo waday waxaan noogu talagalay inaanu annagu isfasaxno oo nin walbaaba gobolkiisa hadda deed isaga noqdo waxaanu taageersanahay annagu madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Saydici baanu taageersanahay annagu arrintaana aad iyo aad baanu uga xunnahay mar walba la gafayo dastuurka lagu gafayo maalkiisaanay sharciga meel lagaga dhacayo arrintaana waxaanu annagu ugu talagalay inaanu hadda deed danaha iyaga nin walbaaba gobolkiisa ku ekaado haddii dantii iyo nabadii iyo walaaltinimadii ay dadka qaadi weyday inuu nin walbaaba gobolkiisa ku ekaadaan doonaa annagu taageersanay madaxweyne ku-xigeenka waa siduu inakaas yidhi yaan ku raacdeen ku taageersanaa dhalinyarta boorama hadda anigoo ka hadlaya qalaasaha iyo xaaladda dalka ee kor u kacsan iyo khilaafka madaxweyne ku-xigeenka aad iyo aad baan u taageersanahay khilaafka madaxweyne ku-xigeenku uu ka hadlay because madaxweynuhu dalka kacsan inuu iska tago madaxweynuhu waa nasiib darro dalka madaxweyne Soomaaliya ugu tagay London waana waxay isku ogyihiin annaga reewdal haddaan nahay wax naga dhigay qol madow isku xasuumay oo ina cidna arkayn hawshaana ma taageerano danta reewdal annaga ka tashan Soomaaliland inta lagu gooyay reewdal ba weeyaan iyagu toodi xamar bay u tagay khilaafka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ka dhex taagan madaxweynuhu sida yar ee fudud iskaga tagay iyo gobolka Awdal ee albaabada uu ka xidhay koodhe anigoo taa ka hadlaya haddana waxaan sheegayaa inuu madaxweyne ku-xigeen la mida uu yahay oo cod ku wada yimaadeen iskuna awoodihiin waxaan ka hadlaynaa haddii dhibaatada uu siiraayo madaxweynuhu dayn waayo iibka dalka Soomaaliland iibiye uu la tagayo xamar hadduu dayn waayo madaxweyne ku-xigeenku wax kalaba kama hadlayo tashigii dibadaha ayuu ka xidhay waxaana u socnaan xamar haddii isaa qoraalkiin madaxweyne siiraayo waxa uu ku socdo hanoo sheegaan hanoo caddeeyaan waxba yuu madaxweyne ku-xigeenka ku dhiman isagoo gobolka Awdal madaxweyne ka soo baxay codna uu annagu dhimashan taa ka naqaan haddii Soomaaliya labada madaxweyne ku-xigeen labada nin la wada doortay madaxweyne kala wiman labadaba meesha dhaafan laba ku-xigeen iyo laba madaxweyne baa la sameeyay marumay wada tagayaan labadooduba wasraacayaan ama wada fadhiyaan wassalaamu calaykum anigoo ku hadlaya magacayga magaca reerka gobolka Awdal waxaan oran lahaa xukuumaddu inay iska deyso isqabshiga oo ay u shaqeyso sidii xukuumaddu matalaysa markaan waxaan leeyahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku labadii ugu sareeyay dalka tigin inuu is-afkarta wala shaqeeyana markaas wasiire iyo waxaan rajo lahayn in kala dhaxgalin inaan inagu wala shaqeysiin baan ugu joogaa dalkan aad istiin anigu dadka inta badan siyaasadaha u dhun daloolamay oo jaalay baaban ka ahay laakiin in adeer maalin walba waxaan joornaalada ku aragnaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenkii baa iskhilaafsan madaxweyne ku-xigeenkii baa la soo eriyay madaxweyne ku-xigeenku ma aqal siraayay uu ka shaqeeyaa waa laba nin oo cod isku mid lagu doortay cod baana lagu eri karaa laguna dooran karaa laakiin waa la soo eriyay sheekooyinkan halkan laga hadlayo annagu waxaan liqi karaynaa ma runtii gobol ahaana oo waxna dhibaya waa la soo eriyay xirsi baa eriyay kala eriyay maqladoodu ka shaqeeya mise cod meesha ku salaam calaykum dabaylahan akhrisaman ee dambaabulada sidaan ee baryahan baa subxaan majlisyadii sheekooyinkii wax la filayn madaxweyne ku-xigeen warday waa wareer weeyaan Soomaaliland man waa muqadas ahad qarameed baan lahayn waxaan lahayn maxaan ku raadaa ii sheegtay in dastuur dalka u yaala marka waxa ka hadlayaa madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha waxa lagu soo doortay cod labaduba waxa weeyaan cod baa lagu soo doortay mid wax la yeeli karaa iyo mid la waxay karaa mid ma jirto axmedna waxaan oranayaa ninkan iskama iman meesha cod baa keenay codkaygii buu joogaa dad baa soo doortay gobol buu matalaa wax talaabo una isagu ogeyn daawood ma lihid ilaahay baa awood leeyahay waad fataysaa laakiin saacadii wasiiradaada maxaa ku diray madaxweyne ku-xigeenka oo taan la yaabsanahay haddaba waxay waraabuhu hadduu dalas ma kiciye waxaan odhan lahaa waa Soomaaliland noo maqdis inaad wada shaqaysiin oo sharafta ku jirtaa dalkana aad wada ilaalisiin wixii intaa ka badan sheekooyinkan majliska aynaan ka badlo way qon weyday
dee mooyaan meesha aaluu garan maayo cabdiraxmaan wad mooyaane cod baa meeshan keenay waa gobol buu matalaa madaxweyne ku-xigeenku cabdiraxmaan dowladdu ka masuul yahay ilaahay ummadda masuulka uga dhigay ayuu matalaa waxna ma samayn kartid wada shaqeeya danta Soomaaliyeed ku jirtay bismillaah waxaan doonayaa in si gaar ah muxuu ahaa dareenkayga uga muujiyo dhibaatada ka jirta muxuu ahaa awdal oo noqotay mid ka duwan gobolada kale waxaad ogtihiin saxaafad ahaan in doorashadii golayaasha deegaanka aan ku soo baxnay maran badan iyo carqalado badan oo ay dad ku dhinteen ay ka mutayseen dadkii awdal iyo sile waxaad ogtihiin in gobolka Togdheer iyo muxuu ahaa waqooyi galbeed oo ah gobollo la siman awdal in dhammaantood la keenay muxuu ahaa awdal oo dadka reer awdal ay yihiin kuwa aan wax camala haynin gobollada kalena aan loo bedelin waxaan leeyahay markaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka haddii loo sameeyay oo dadku isku mid yihiin waa in la helaa awdal oo ka shaqeynaysa Togdheer waqooyi galbeed haddii si ay noqoto dadka reer awdalaha garbaduubnaadaan waqooyi galbeed iyo burcanaha ka shaqeeyaan awdal golayaasha deegaanada ee la soo doortay way diidan yihiin shacabkoogu inuu garbaduubnaado waxaan leenahay waa in laga qaadaa tallaabo waajiba haddii kale loo sheegaa dadka awdal inaanay muxuu ahaa la xuquuq ahayn iyaguna golayaasha deegaanku si ay uga tashadaan waxaan ugu baaqayaa golayaasha deegaanku inaan shir ugu qabanayno baki afarta degmo ee aw gobolka sal yawdal ay ka tirsan yihiin inaan ugu baaqno shir in ay isugu yimaadaan baki si ay isku weydiiyaan danaha awdal iyo sal oo ah kuwa xuquuqda dadkoogii ay ka maqan tahay ee aanay hayn wax shaqo isla markaana looga keenayo Togdheer iyo Burco inay ka shaqeeyaan gobolladooda kuwa gobolkooda joogana aan looga bedelayn meel kale wassalaamu calaykum waxaan leeyahay madaxweyne jawaab cad laga bixiyo